gudoomiyaha gobolka Mudug ayaa kormeeray mashaariicda hay'adaha samafalku ay ka wadaan gobolkaas sida uu ku soo waramayo Baashi Cali Xaashi. socdaalkan gudoomiyaha gobolka Mudug ayaa ku saabsanaa kormeeridda mashruuc muruqmaal ah oo ay ka faa'iideysteen 408 qoys ayna fulisay hay'adda IRC oo kamid ah hay'adaha samafal ee ka shaqeeya dalka waxaana ku wehelinayay shaqaalaha hay'adda iyo sidoo kale madaxa IRC xafiiska gaalkacyo dhammaan maamulada iyo shacabka deegaanada Calgula Bejeele Duwaan iyo Ceeldibir ayaa kaga mahadceliyay hay'adda IRC shaqooyinka ka hayso gobolka gaar ahaan deegaanadooda hadii la rabo oo shacabka in wax loo qabto la rabo IRC wakiilka loo dhiibaa qoranahay wixii dhaqaale lahaa ayaga la dawladda sidaas ma aha waxa hadda Calgula ay ka qabteen wax la tiri karo ma aha haday qeyl tahay haday hadii kale leeyahay halkaan tahay IRC iyo maanta xadiiska kaarka iyo dhammaan doonadii cajab galiyay oo ay kamid tahay afda oo mashruucan maal galiyay isbitaalka Bejeele ugu balaarinayay halkaas ay ugu faa'iideysteen 82 qofood oo 80 kun ay ahaayeen dad maasay oxida labaduna ay ahaayeen furmaan sida u jeedin baadeed weyn oo qolqolta ah iyo oo meeshan laga dhisay oo ay dhistay hay'adda IRC deeqdana ay bixisay ofta gobolka bari joogo intaas baan la wareegnay madaxa hay'adda IRC xafiiska gaalkacyo Cabdikariin Xasan Cusmaan ayaa sheegay in ay sii wadayaan shaqada ay bulshada u hayaan iyagoo gudoomiyaha iyo sidoo kale maamulada deegaanadaas ku wareejiyay mashruuca ay ka hirgeliyeen deegaanadaas gudoomiyaha deegaanka Ceeldibir Cabdiraxmaan Sheekh Xasan ayaa sheegay in IRC shaqooyin kala duwan ay ka hirgelisay Ceeldibir shaqadaas waan oran karno ma soo koobi karno oo galabta ugu dambeeyay mashruuca aan joogno shaqadaas waxaan leeyahay IRC aad iyo aad u maasantiin shaqadii wacnayd ee musuqmaasuqa aan lahayn ee bulshada la tashigeeda ku dhisnayd wax qabadka cadaaladda garab istaagga bulshada aad baan ka mahad celinaynaa gudoomiyaha gobolka Mudug Cabdiraxmaan Cali Diiriye Isxal ayaa bogaadiyay shaqada IRC ay ka hayso gobolka Mudug isagoona kala wareegay furayaasha mashruuca ay hirgeliyeen goobi ay tageen markaan aragnay tayadooda iyo meesha ay ka dhiseen oo deegaankuna doortay si ugu habboon tahay iyo deegaankii aan tagay soo amaanay guulan ka bilownay saacadaan ku jirnay amaantood Bejeele waxaan tagnay Bejeele kadalika Gawaan baan tagnay maantana waxaan joognay Dibiro qaybtii afraad u dambeysay soo noqodka dambe aan rajeynayno Baashi Cali Xaashi raadiyaha TV-ga qaranka hobyo ururka wacyigelinta nabadda ayaa wacyigelin ku saabsan arrimaha caabuqa coronavirus magaalada Kampala ee xarunta waddanka Uganda ugu qabtay ardayda Soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi Yusuf Kashmir ayaa warkan ka soo diray dood wadaaggan ay soo qaban qaabiyeen ururka wacyigelinta nabadda ayaa waxaa ka qayb galay doodan aqoonyahanada wax ka barata jaamacadaha kala duwan ee ku yaala dalkan Uganda madaxda ururada ardayda Soomaaliyeed u qaybsanaha warfaafinta safaaradda Soomaaliya iyo marsharaf kale kulankan